daawade muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee shukulaatada madow. Sidoo kale waxaan isla muuqaalkan ku eegi doonaa waxtarka ay u leedahay hooyada uurka leh shukulaatada madow. Shukulaatada waa mid ka mid ah cuntooyinka aadka loo qiimeeyo carruurta iyo dadka weynba ay isticmaalaan. Waxay siisaa dhadhan macaan, sidoo kale borotiin ay ku jiraaba la leeyahay iyadoo aan loo egin sida qofka u cuno. Sida nacnaca, cabitaan kulul ama lagu shubay jalaato, dhammaanba shukulaatada waa la adeegsadaa. Shukulaatada madow oo sidoo kale loo yaqaan dark chocolate waxay ka kooban tahay antioxidant iyo nafaqooyin yaryar oo muhiim ah. Shukulaatadan waxaa laga sameeyaa kookaha, waa geed qani ku ah antioxidant iyo macdanta, sonkorta, caanaha, subagga kookaha iyo xaddi yar oo kookaha ka mid ah ama cocoa-ga waxa loo yaqaano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shukulaatada inta badan dadka ka ganacsada ay sameeyaan. Marka la barbar dhigo shukulaatada caanaha, shukulaatada madow waxay ka kooban tahay kookaha aad u badan iyo sokor yar. Aynu fahanna marka faa'iidooyinka shukulaatada madow ay leedahay. Haddaba shukulaatada madow ayaa kasoo dhex muuqata dadka dhinaca wax soo saarka shukulaatada madow wax yar bay ka duwan tahay kuwa kale. Maadooyinka la isticmaalo waxay la mid yihiin noocyada kale ee shukulaatooyinka kale ee la isticmaalo, kuwaasoo ay ku jiraan kookaha, budada, caanaha, sonkorta iyo maadooyin kale. Laakiin tiradan ayaa aad u kala duwanaan karta. Waxyaabo badan oo ku jiro caanaha iyo shukulaatada madow sida sonkorta, subagga, kookaha iyo sidoo kale waxyaabaha la isticmaalo ayaa la mid ah. Si kastaba ha ahaatee boqolkiiba waxyaabahan kookahan cocoa-ga loo yaqaano ayaa aad u kala duwan labada dhinac. Haddaba macluumaadka nafaqo ee shukulaatada madow haddii aan isla eegno maadooyinka ku jiro calories-ka 600 ilaa 650 calories ayay ka kooban tahay. Xagga borotiinka ama nafaqada ku jirto waa 7 ilaa 8 garaam. Faatka ku jiro waa 42 ilaa 45 garaam. Dufanka buuxa ee ku jiro waa 24 ilaa 25 garaam. Waa carbohydrate-ka ku jira haddii aan eegno waa 45 ilaa 55. Haddii aan isla eegno sokorta ku jirto waa 24 ilaa 27 garaam. Fiber-ka cuntada ku jirto 10 ilaa 11 garaam. Iron-ka ku jiro ama maadada iron-ka ku jirto ee birta loo yaqaano 11 ilaa 12 garaam. Magnesium-ka waa 220 garaam ilaa 230 garaam. Zinc-ga ku jirto waa 3 ilaa 4 garaam. Potassium-ka 700 ilaa 750 garaam. Caffeine-ka ku jirto waa 40 ilaa 50 garaam. Faa'iidooyinka la xaqiijiyay ee cunista shukulaatada madow haddii aan si dhex jibaaxno qiimaha nafaqada weyn iyo faa'iidooyinka caafimaad ee suurtagalka ah ee shukulaatada ayaa lagu muujiyay tiro daraasaadyo badan oo ku saleysan cilmi baaris. Faa'iidooyinka jirka iyo maskaxda dhammaan cuntooyinka waa in lagu arkaa iftiin wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dhisidda ama xoojinta xiriirka wanaagsan shukulaatada madow gaar ahaan waxay si weyn u hagaajin kartaa caafimaadka guud. Antioxidant-ka ama maadooyinka la diriiro caabuqyada jirka waxay ku badan yihiin shukulaatada madow. Mid ka mid ah waxaa ka mid ah flavonols oo ugu badan, waana markaasi kiimikooyinka loo yaqaano flavonols kuwa oo kasoo jeeda dhirta. Waxay yareeyaan bararka, waxay unugyada ka ilaaliyaan waxyeelada markaasi oxidant-ka loo yaqaano. Haddaba faa'iidooyinka kale waxay kordhisaa caafimaadka wadnaha. Antioxidant-ka shukulaatada madow ayaa la caddeeyay inay hoos u dhigto cadaadiska dhiigga, yareyso khatarta xinjirowga, kor u qaaddo wareegga dhiigga wadnaha, hoos u dhigto fursadaha cudurrada wadnaha, stroke iyo cudurrada wadnaha. Waxay dheelitirtaa habka difaaca jirka. Waxay ka ilaalisaa nidaamka difaaca inuu si xad dhaaf ah u kiciyo ama u yareeyo stroke-ga. Dheelitirnaan la'aanta ay abuuraan unugyada la dagaalanka xag jirka xorta iyo sababta ugu badan ee cudurro badan jirka soo gaari karto. Waxay la dagaalantaa cudurka macaanka. Waxaa la xaqiijiyay in shukulaatada sidoo kale ay ka qayb qaadato in ay wax weyn ka tarto cudurka macaanka. Waan filayaa dad badan in aysan sidaasi u ogeyn. Hase ahaatee waxaa leeyahay shukulaatadan wax weyn ayay ka tartaa cudurka macaanka sida dadka qaar ay xaqiijiyeen. Waxaana waxyaabaha la xaqiijiyay ku jira cilmi baarisyaal sheegaya in shukulaatada madow ay ku jiraan heerar aad u sarreeya oo cocoa kuwa oo qani ku ah maadooyinkan. Haddaba cilmi baaristan waxay dabagal ku sameeyeen 153 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 69 jir, waxayna la socdeen isticmaalka shukulaatada iyo xiriirka uu la leeyahay
dhanka iska caabinta jirka maadada insulinka taasi oo soo saarta iska caabinta jirka halista dheeraadka ee ugu jira helitaanka macaanka nooca type 2ga cudurka wadnaha marka lagu daro saameynta heerka enzymeska markaasi beerka cilmibaarayaashu waxay ogaadeen in 81.8 ka mid ah boqolkiiba markaasi ka qaybgalayaasha daraasaadkan cunay shukulaatada madow oo isticmaalkooda dhexdhexaadka isku celcelisaan maalin kasta uu gaaray 25 gram natiijooyinka daraasaad ay waxay muujiyeen in isticmaalka dhexdhexaadka ee chocolateska maalin kasta ay yareyso iska caabinta jirka insulinka iyo sidoo kale hoos u dhigidda halista helitaanka cudurrada wadnaha iyadoo wanaajisay heerka enzymeska ee beerka markii loo barbardhigo kuwii aan cunin chocolateska dhinaca kale chocolateska oo ay ku jiraan heerar aad u sarreeya oo dufan iyo sonkor waxaa isticmaalka xad-dhaafku horseedi karaa dhibaatooyin caafimaad sida suuska ilkaha iyo cayilka oo dad badanna aan filayo in ay aaminsan yihiin waxay wanaajisaa maskaxda shukulaatada madow waxay caawisaa dhimista miisaanka marka si dhexdhexaada loo cuno shukulaatada madow waxay ka caawin kartaa miisaan dhimis sababtoo ah heerka fiberka oo sarreeya iyo maadada antioxidantka waxay gacan ka geystaan kor u qaadista dheefshiidka kiimikaadka waxay yareeyaan damaca waxayna dhiirigelisaa dareenka buuxa haddaba doorashada shukulaatada madow ee ugu yaraan 70% kookaha waxay la micno tahay inaad leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan waxay kor u qaadaa waxqabadka dhaqdhaqaaqa jirka waxay yareysaa cadaadiska faa'iidooyinka kale caafimaad ee shukulaatada madow ee leedahay waxaa ka mid ah waxay qani ku tahay waxaa ku jira flavonoid oo ka caawiya la dagaalanka cadaadiska oxidantka waxay kicisaa wax soo saarka endorphin waxaa laga yaabaa inay yaraato diiqada waxaa laga yaabaa inay hagaajiso caafimaadka maqaarka waxay maqaarka ka ilaalin kartaa dhaawaca qoraxda waxayna wanaajisaa fuuqbaxa waxay wanaajisaa heerarka cholesterolka waxay kor u qaadi kartaa cholesterolka wanaagsan HDL waxayna hoos u dhigi kartaa cholesterolka xun ee loo yaqaan LDL xaqiiqooyinka ku saabsan caafimaadka shukulaatada madow inta badan kookaha ku jira shukulaatada madow waxaa ku jira maado caafimaad leh saameyn badan ayaa la xiriiriya shukulaatada madow oo ka kooban 70% kookaha cilmibaarayaashu waxay soo jeediyaan in shukulaatada madow ee mararka qaarkood ay markaasi sameeyaan ay saameyn qeexan ay ku leedahay niyadda caafimaadka waxyeello aysan gaarin had iyo jeer hubi calaamadaha xadidooyinka loogu talagalay qofka in uu isticmaalo dhinaca kale bal isla shukulaatada madow iyo waxtarkeeda dhanka hooyada uurka leh haddii aan eegno cilmi baaris xeeldheerayaal ka tirsan jaamacadda Laval ee magaalada Quebec ee dalka Canada ay daahfurtay in shukulaatada madow oo horey loogu ogaa in xaaladda nafsiga ay dejiso dabeecadaha ay furfurto sidoo kale raad caafimaad oo togan ay ku leedahay caafimaadka hooyada iyo uurka waxay cilmi baaristan sheegtay in gabadha oo xilliga uurka cunto shukulaatada guud ahaan iyo gaar ahaan nooca uu ku jiro xaddi badan oo isku dhiska ay xoojiso koritaanka ilmaha uurka ku jiro madheerta ay ka caawiso in howlaheeda ay si habsami leh oo tayo badan u gudato inay yareeyo khatarta dumarka qaar ku dhaco ee loo yaqaan sumowga uurka dhibaatooyinka kale ee xilliga uurka imaan kara tijaabooyinkan lagu sameeyay 129 dumar oo leh uur toddobaadkii 11 ilaa 14 ku jira kuwa oo muddo 12 toddobaad qayb ka mid ah la siinaya 30 gram oo shukulaato ah oo leh maadada flavonoids qaybta kalena shukulaatadan oo ay ku yartahay maadada flavonoids si joogto ah loola socday caafimaadkooda iyo caafimaadka ilmaha ay sidaan aakhirkii markii ay umuleen madheertooda baaris lagu sameeyay ayaa la ogaaday in ay ka xoogan tahay kana waxtar tayo badan tahay madheerta hooyada aan shukulaatada badan cunin waxayna khubarada caafimaadka sheegeen madheertu ay qabanayso shaqo ku badan inay quudiso oo nafaqeyso ilmaha oo keliya taasina ay keentay in ilmaha caafimaadkiisa wanaagsanaado miisaankiisana uu fiicnaado inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalka maanta aan ku qeexaya cunista shukulaatada madow dark chocolates isbarbardhig aan ku sameynaynay shukulaatooyinka kale iyo waxtarkeeda dhinaca hooyooyinka haweenka iyo ragga intaba iyo si guudba caafimaadka guud waxa ay ka tarto ayaan ku faaqideynay subscribe inoo saar channelkan like garee muuqaalkan la wadaag asxaabtaada qaybta commentiga aragtidaada iyo faalladaada inoogu reeb